ويصوب حيانا وحبوا مقر الصومال وقرنسا يعني الصومال وحكوا مع بعض بدنا ما نعلم قبطان أن وحوي أن مركان هذا كان أن مشهور ريان فار مغلي يعني أرمو فرضان ما تام عليه ضربة أنت عتوية ضربة أنت عتوية أن لكن واحد ذي شيء يا سري حقيقة وهاي سري بكران أنتوا هو شو سعودان وهذا الديل ستة كان سوير مستر عجون wuxuu ku hanjabayaa in ay runta soo bixi doonto la iskana sugo goornawna laga fisho waxa uu sheegay in uu ku sugan yahay sida ninka wareysanaya uu sheegay magaalada Hargeysa barnaamijka intaynu ugu gudagelin waxaan ka codsanayaa in aad like saartid sida uu gaaro dad fara badan haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir si aad uga mid noqotid saaxiibadeena quruxda badan ee horey noola jooga isku soo noqod wanaagsan mar kale ayaynu isku soo noqonnay daawadayaal waxaanu idin haynaa Mr. Achuun Mrs. Man waa Mr. Achuun ama dhagachuun saa u taqaaniin dadku way kala saari waayeen dhagachuunkii Achuunkii aniga maalintii ugu horeysa warka soo gudbinayay baan dhagachuun idisaas YouTube raqaro oo dhagachuun ugu yeeray arkay iska badhay Mr. dhagachuun waxa uu soo diray fariin kale waa la wareystay nin baa sheegay inuu wareystay marin habaabin la sameeyay in ay ka tahay iyo in ay ka tahay run moojaani waxa uu yiri waxaan ku suganahay gudaha Soomaaliland waa arrin ka sii wanaagsan hadeer baa la handaraabaya haduu magaalada Hargeysa joogo wuxuu yiri Soomaaliland ku suganaa soo ninka faahfaahinay ninka wuxuu yiri war waxbaan wax weyn baan soo wadaa dadku inay iska sii hordhacaan ma lahan yaana waxba beeniya barraq la wadin taayar oo gibil wuxuu ka dhigayba war inuu soo wado oo diyaar garowgeeda uu ku jiro yaa una leeyahay Mr. Achuun in aan dad hadalaayo caytamayo waan arkay kan wareysanaya horta mid kan hadlayaba waxba isku ma yeekan dhaamin bal horta intaan anagu idin ku wadin bal ila dhageysta nin waxaan rabaa in adeero Cabdi Ciise Ajuunow waxaan anagu horta waad iga qanciso waad ii sheegtay inaad ma garanaysaay cidna waxba ka duuban cidna aanad waxba ka hayn waan ku canaantay bal dadka Soomaaliyeed ku daawanaya 400 dheeraadka ah waxaad u sheegtaa gabadhan habeen dhowtana maraan ka hadlay barnaamijkaaga waxaad igu tiri gabadhan isma qabnay maxaad u tiri way isqabaan Sooma marka bal gabadhan inaad arinteeda waxaana jeclaan lahaa hadaad iskaaga tusi karto oo imika macquul tahay waa iskaaga tusi hadii kalena waxa way saasaad ku hadlaysaa arintan gabadhan bal nooga waran Cabdi ولي أنا مالك كهذا ما شفته قفا ورئيسي ما شلو أنت هذه تيجي تاي هذه يوتيوبر تاي إذا البوي لصاليان وحوي تذكر سومالي دنيا روح على الدرم بيت بدن كشقيسة صح سيد عشراني حقيقة أنا إلهي بقى ما قرأت إلهي بقى وارنتها صح أديات أنا قلت أقول ولا شيء قف عيب يعي منه يوم ضمن معها كل وجه شرانا ويصوب حيانا وحبوا مقر الصومال وقرنسا واقرتي markaan adeer ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa maadaama qofkii wareeyay telefoon qabtaa tahay yani Soomaalidu waxay ku maamaadaan badana ma cunno qabtaan waa gartay waxa weeye markaan adeer dadkan mashruuc wareerayaan qaar maqlay yani arrimo fara badan baa intaan qalay darba inta caytooya darba inta cajabiya laakiin waxaan idin sheegayaa siday xaqiiqadu tahay siday ku jiraan intuba way soo socdaan waana ka hadlaynaa marka okay mar live okay intaan live ka hadal hal laba su'aalood baan rabaa inaan ku weydiiyo laakiin waxaan leeyahay degeysana ha laakiin waxaan leeyahay dadkan intaan isku naqanaa way yartahay inta iyada taqaanaana way yartahay marka ummadii Soomaaliyeedna iyo in qof kasta waxaan shaqadiisii ahayn ku hayaa صح marka waxaan ummadda u sheegayaa inay wixii xaqiiqo ah iyaga soo baxaya صح laakiin mar raba hadda inaan ka hordhaco halkana inaan ka hadlo mar rabo marka niyo qof walba shaqadii uu leeyahay iska qabsado war jira magaca kale Soomaalidu saadaaye yani hal sugo insha Allah wixii xaqiiqo iyaga iskeenay waa si wanaagsan marka waxa aad leedahay horta mar rabo su'aalo badan aan ku weydiiyo waayo anigu arrinta waan ka dhareegsanahay inaad nin aan dambi ahayn wax dambi aanad samayn laakiin hal arrin baa runtii dadku is weydiinayaan arrinta Masar markii aad joogtay ma cid baa adiga ku soo kaxaysay ma cid baa ma garanaysaa maxaad Masar u joogtay
oo ma garanaysaay arrintaasaan rabaa inaad bal wax yar dadku waftiismo waxay leeyihiin masar qof baa geeyey lacag baa lagu bixi la siiyey qarash baa la siinayey arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa eedayntaas niyow xaajinimaan weyn indhuhu ku rabay Soomaalidu tiraahdaa hadalkaygu waxaan kugu soo ururiyay haddii aad fahantay oo ama yani dadka Soomaaliyeed aniga daawanaya xataa ay fahmayaan inaan arrinkan iyo xaqiiqadiisiba oo mid soo socota waana mid diyaarsan waana mid meel saaran marka hadda ma rabo inaan la istaagan karo waa suunas insha Allah wax la qarinayo ma jiraan haddii ilaahay waad soo fadhiisanaysaa way yani inta walaashayna ma yaanu fadhiisigan iyo wax ma yimaado walniyo inta waa ina walaashaya safiyo samaac kasana naga isaga dhow laakiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed walniyo wixii hadda jira iyo cid waxaan samaysaynta way soo baxayaan waraysiga baahan iyo cid kale waan siinayna laakiin hadda ma rabo inaan halkan marka arrintan la wado marka waxaad horta gabadhu iyadu may oran Cabdi waxa igu sameeyay waxaan hadda ka jidno ma ay deegsayna arqali ma rabo inaan hadda waxa halkan wax jawaabayo wax su'aalo midna ka geysto ma garanaysaa waa gartay sax laakiin waxaan leeyahay wixii xaqiiqa iyaga iska imanayeen hal sugo qofkii ay tamayaan isaga qosaysaa kii ciidamaanayaan isaga qosaysaa laakiin wixii xaqiiqa ay naar iyaga iska imanaya hal sugo dadku qaar baa xitaa ku maqlay u baxsaday ninka Itoobiya tagay oo uu haystaba falkan dartiin anigu meel kale u qabtay marka waxaan leeyahay in adeer yani maro niman culin ma qabtaan baa hadalku iga dhan yahay kan iyo waxaan ka ogahay waxa ka jirana uu soo socday yaan laga degdegin waa suunas waa maasantay aad baan ku salaamay Cabdi Ciise Cajuun waa maasantay tan kiina waa maasantay insha Allah caawan soo hadal doona insha Allah way niyow waa maqlaysaan wiilku si fiican buu hadlay marka sheekadan cidda wada waxaan leeyahay live-ka waan inaan ka baxan rabaa sheekadan cidda wadda fiyuuska ku raadsanaysa hadalkiisa waa si wanaagsan baa u fahantay ma filaya Soomaaliya wiilkan waa nin dhalinyaro wuu baxsadayna waxba kama jiraan Etoobiyana ma joogo Faransiisna ma joogo Ingiriisna ma joogo waxaan beentan aan wareejinaysaan iska daaya waxaan uu sheegay inuu ma garanaysaay waqti dhow ay wax walba kala cadaan doonaan inay waqti dhow wax walba kala cadaan doonaan anigu runtii ma garanaysaay beenahan social media la faafinaya way isqabaana waa maqlaysa ma filaya wiilku wuxuu sheegay inaanta walaaltinimo iyo wanaag ayaa naga dhaxeeyay buu ka saari mayso kama saaraysaba dee haddana sheekada gurkaaba inkiraad loo dhow yahay sawirkeena macdagan waan uga jeedayaa fanaanad reeraad geyso waxaan filayaa inay isku reer yihiin uu soo saartay wallaahi adduunkan waxaa yidhi habar loo waayo waa hogu joog ama waa habaara maqli jiray wuxuu rabaa in hadda Safiya Tusma uu shacabka ku soo jeediyo uu yiraahdo ay dhahaan xaraan iskula seexdeen kana yeeleen oo maba qabo iyo sheeka bilowgeed waay marka de waxaad soo dhoobtaba bataatam kor iyo hoos qaladka waxa iskale Mr. Dhagajuun Cajuun baa leh Cajuun koow adaale laba adaale saddexna adaale sababtaad ku keentay inaad duubto sababtaad ku keentay in ayadu ceeb yeelato adigu ceeb yeelan way horta Soomaaliya sababtay gabadhu ceeb yeelanaysa ninkuna ceeb u yeelan waaye maxay tahay maanta wuxuu yira walaaltinimo la inaga dhaxayso de hadda walaaltinimo idinka dhaxayso waad kala tagteen laakiin gabadha waxa ku rikaateynaysa gabar hooyo ah oo caruur dhashay oo wad ilma xanuunsan ka soo tagtay telefisyoon inta soo hor fadhiista wax ka oysiiyo wax yar maahan sababta uu ugu raadinayo qiilne garan maayo hadduu maanta Hargeysa saas ku dhex joogane waaba gunnimo iyo ceeb u soo hoyatay waaye reer Somaliland qof in lagu dhex dulmiyo maanta gabar ay ka dhex ooyday maanta magaalada Hargeysa